wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada wareysi ay maanta ay suurta gashay in la yeesho halganto Ubax Maxamed Tarabi oo ka soo shaqeyn jirtay dhinaca xuquuqul insaanka deegaanka Soomaalida haatan socdaal ku joogta dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaan jeclahay marka hore inaad ila soo dhaweysaan soo dhawo marka hore aad iyo aad baan ku salaamaya deeqow mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa inaan maanta halkan marti kuugu ahay waxaan ogahay inaad wariye tahay oo deegaanka ka soo shaqeysay sidoo kale waxaan ogahay in xuquuqul insaanka ka soo shaqeysay sidoo kale in halgankii balaarna aad qayb ka ahayd laakiin dadka aan ku aqoonin ee maanta TV ka daawanaya ee u suurta gashay in maanta ay wareysigan ay daawadaan wax isweydiin karaan Ubax Watuma deeqow Ubax Maxamed Tarabi waa gabar Soomaaliyeed ku dhalatay afmadow Jubbaland kasoo barbaartay deegaanka Soomaalida galbeed saxafi wadani xuquuqul insaan adu farabadan bulshadana oo ahay dadka u hadla yaan kamid ahaa halkan baanan hada booqasho ku jooga way socdaalkaadii Mareykanka marka muxuu daray waxaan u imaaday halkan shirarka dhacayay 24kii iyo 1dii bishii la soo dhaafay shirarkaas oo ka kala dhacay Minnesota iyo Ohio shirarkaas aan u imaaday iyo arrimo socdaal kale oo markii koobaad in Mareykan imaado iyo aniga inaan bulshadeedii xataa laftayda soo arko arrimahaas aan u imaaday iyo shirarkaas way shirarkaasi maxay daarnaayeen marka shirarkaas waxay daaraayeen shirar kala duwan bay ahaayeen qaar Soomaalida ahaayeen qaar shirkii August maxaan ku dhahay xisbiga ahaayeen oo 24kii August halka ka dhacay oo si gudbay meesha la yiraahdo Columbus Ohio oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayo shirkii kadib aan fursadan ka faa'iideysanayo dadkii Ohio joogay halka igu soo dhaweeyay hadii yihiin xildhibaano hadii yihiin jaaliyadii kala duwanaa Soomaalidu community iyo jaaliyada kala duwan bay leedahay kulligood si wada jiray ii soo dhaweeyay xildhibaan Ismaaciil Ali Geesood Ugaas Kaabe iyo nin la yiraahdo Kaamil iyo Asad Ali Xirsi iyo Miir nin la yiraahdo Nuur ragaas aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Shiina afkaamnin la dhaxarba aad naasagana halkan uga salaamo ugaasiye iyo dad fara badan baan halka kula kulmay dadkaygii baan shirar gooni alla yeeshay bulshadeydii aan soo matalayeen u shaqeynayay halkan markaan imaadayna sidoo kale ayadana si lamida shirarkii kadib dadkaygii baa iyagana halkan si qurux badan aad igu soo dhaweeyay oo ay Muxidiin Sheekh Cabdi iyo Gaani iyo gabadh dhaho Mareen Xirsi Mahad Saara Sulub Cashuur iyo Ruqayr Rashiid dadkaas ay hormuud u ahaayeen aad iyo aad baan ugu salaamin Axmed Kacaan la dhahay isagana aan halkan aad ugu xusaya dadkaas oo dhanba aad xaflada gooni ayagana ii sameeyoon la kulmay boqolkiiba boqol ayagana oo mahad celinaya ano chance-kan ka faa'iideysanaya aad baan mahadsantahay isbedel xoogan ayaa ka dhacay sidaan ogahay deegaanka Soomaalida dad badan way soo dhaweeyeen isbedeladaasi maxay soo kordhiyeen deeqow sidaad ogtahay deegaanka muddo 24 sano dagaal baa ka socday dagaalka hadii dib loo noqdana dagaal badan oo ka sii horeeyay oo ka horeeyay Soomaaliya intay dhisnayd aad u dheer baa soo jiray oo ahaa dadkan Soomaalida oo rabay walaalahoodii Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan oo raacaan iyo dadkii dawladda Ethiopia oo mar walba cadaadis ku haysay oo dadka la dagaalameysay dawladda Migistiya Soomaaliya waa ay wada dhaceen kadib nimanka Tigray la dhahaa wadankii qabsaday nimanka Tigrayga hankooda uu ka weynaa deegaanka Soomaalida oo kaliya waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed oo taariikhda aad aragtay in damac weyn Ethiopia leedahay dagaalkaas deegaanka ka dhacay marka wuxuu ragaad ku ahaa oo uu horjoog ku ahaa oo uu moos u ahaa dadka Soomaaliyeed nimanna la fladhay halka ka dagaalamayay oo Ilaahay aan leeyahay khayr Allah idin siiyo halgamayaala nimankaas waxay difaaceen ummadda Soomaaliyeed ummadda dagaalka kadibna isbedel baa dhacay nimankii Tigrayga baa dhacay 24 sano kadib ama 30 sano kadib oo aan dhowr sano dagaal soconin isbedelka waxa la filayay
inuu noqdo mid bulshada ay ka faa'iideysato oo waxay heshiiska u gashay dadka deegaanku inay nabad helaan in kuwii xabsiyada ka soo baxay la baanto in dibadejin loo sameeyo in ku qaxoontiyada aad la soo celiyo arintaas waxba kama suuragelin oo isbedelkaas xabadii qorigii ay ONLF waday baa la dhigay xabsiyadii waa la galaa oo yeena badnaaniba dadkii dhibaataysnaa dibadejin ma helin kuwii dhaawacyada soo gaadheen lama xaqin bale haddana mar kale odayaal meel la soo fadhiisiyay iyo dad la soo jujuubaa inoo muuqata deegaanka Soomaalida xabadu ma ka soconina wax nolol isbedeleeda oo ka soo kordhay ma jiro hadda waxay ku maqalaa in maalmihi la soo dhaafay dagaal beeleedyo halkaas ay ka dhaceen arintaas sidoo aragtaa aad iyo aad arintaas waa arin aad iyo aad looga murugoodo dagaal beeleedyadaas waxay ahayd kuwa ka socda gobolka Doolo horeyna waxay uga soo dhaceen birqod iyo ismoodi iyo dhinaca kale godashadeeda dagaal beeleedyadaas aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana ka tacsiyeynaya dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay gaar ahaan gobolkii Doolo waxaan rabaa inaan halka baaq uga diro odayaasha deegaanka oo hadda ka horna baaq u diray baaqas waa ay ka soo jawaabeen oo way hadleen laakiin hadal oo kaliya looma baahna waxa loo baahan yahay odayaasha jooga Qabridaar magaalada Goday dhagax buur نقب يرر يو تشجيع عاصمة دي انتبه انت يجوا بحان دتك ولا له ده إن النبض لحدقان قرمد السمايان يجوا أي كوك له وقتان دتك إن عاومات السمايان صدق سنة بين ده كدورني هذا الأكل يلا ما بعنا وضياش عرفتوا ده بانود الليلة حرب عينا كلام وش الدولة ديجان كصومالي وإياه هذا عن عدنا حبت كسور دينين وودن كيف متشمرك حسبيه معارضة يجوا قالوا حكور عادين يلا جربوا دتك ده إن يبدباديان ولبعت هذا كلا بحان أنا فرصتك فايدة سنة وما صنت دقة. وين هذا مركز دجال كم قبوبي أو أضياش ما ده جلان مسؤول وصدا. دجال باقي الصباحي إن هذا حبض ومس عطو مركز الجرة واللي حويله مساجد الجود اللي هبين دويد إن هذا أنا أضياش وحان فيليا إني سي جرمد كل محيموتشي يعني إني ميل والبلغة كعي إن دتك اللي كلا بتبادين أيو دجال وح هذا مسعود لكن دبعت دي صدق حسن سوس عتي قبل كدولة هي ستي مد آد كذا أولى ودتك هذا نباهيدا إيه دبعتها كم وقت عياد وبدنتهاي حان آد ويابي إن الدولة الدور كذا قادن أضياشنا إن الدور كذا قادن warar kala duwan ayaa soo baxayay maalmihii la soo dhaafay ee ku aadan damaca Itoobiya ee arrimaha badda Soomaaliya markii arintaas ay ku soo gaartay sidee u aragtaa deeqow hadii aad fiiriso taariikhda Itoobiya buug waxa yaala xayla salaase mingista xayla marin halka loogu tago oo mililig uu ka tagay buugaas damaca Itoobiya waa ku qoran yahay kii hore wadadiisii buu maraa Itoobiyana waxa haysan jiray niman axmaaro la dhoo andinad كدمنا تكري باقبسي لكن مددر بين ما كاسو هايستين oo dadku ay ku dulmanaayeen oo qoomiyad walba gumaysan jirto dhibaato u geysan jirtay Itoobiya markasta badna mayna lahayn waxa kale oo ina lahayn shidaal oo shidaalkuna wuxuu ku yaala gobolkan ogaadeen oo dhinaca shilaaba ka ugu weyn inta u badan damacooda halkaas ah laakiin waxa ay taayir ka rogi lahayd wuxuu ahaa halgamadii istaba joog ahaa ka horeeyay ONLF iyo kii ONLF intaba isbedelkii fursad bay Itoobiya ka dhigatay inay ragaad qodax ku taagneed baa ka baxday marka maadaama qodaxda ka baxday oo ONLF hadda ay nabadgeliyo ku joogtay qalin wax ku raadinayso inay hore u sii socoto oo damci ay lahayd fuliso laakiin hal arrin jirta Itoobiya maanta jirta oo laga baqama jirto أنا أقول هذا الكا إثيوبيا وقومية بيسولينسا تكري دينا عبي أوجين إسكرتودي بالسودان السودي بيسا أحمر ويدقال ما يساتشف هاد بين نقطة دول لماذا ما إثيوبيا لو شيء ورمها فيك مركا هدي أي ما إثيوبيا دي إسكودو من تشري لهيد إلا هذا الله اسمه ورئيستين با هنك إثيوبيا وحوي إني قصبت كويشو مركي إنك أمد الصومالي لو فكرية لها قومية نقطة فدراليسم سماية على مدى نير الله سميني أنا واحد إثيوبيا لقى من قريب وها أرنت أسمع مركا تكري دم عودة إن الصومالي كلا تشي بسوق قيبي حكم كسمايسو ومدة ديجان ككلية ما ينكو كومنات الصومالي وجودته وحي أهيد مد أي ربط إنك كفا إديست وضع أمرت بدن لكن إذا لفتي دبا إلهي بربر كوكينا يعود بين الهين دم عسل لكن ومن سوتشر way marka maadaama Itoobiya aad sheegtay aad inay kala qaybsan tahay dhinaca Soomaalida markaad fiiriso oo adigu aad ka dhalatay dadka ay yihiin ma kula tahay in iyaguna xilligan ay diyaar u yihiin oo gacmaha is haystaan ayna wajihi karaan dawladda Itoobiya Itoobiya
daan ku sheegaya waxa weeye mid hadda rabta buuqan in waa abi ka faa'iideysto oo uu sameeyo dhaho Soomaali baan la dagaalamaya si uu dagaalada badan isaga ku furan ay maslaxa u noqoto qaar u soo raacaan midnimo u ka raadinayo laakiin ma dhacaysa xaaladda Itoobiya maanta meesha la marayo marka la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed aniga dagaalku ma baqayno Itoobiya darsi baan nahay hadda shuruuc caalami ah jirta waxa loo baahan yahay Itoobiya xadkeedii inay ogolaato inay ku noqoto gurigeedii dalka Soomaaliyeed waa dal madax banaan adduunku ma ogola wadan madax banaan in la iska galo walow daciifnimo iyo habacsanaan iyo kala burbur badan uu jiro marka Itoobiya duulimaad ee Soomaaliya duulimaad ma aha hadii se timaado in Itoobiya sii wada duulimaadkeeda xaq darrada Soomaaliya waa istifaaci laakiin anagu ma rabno qarnigan maanta Afrilaatanaad in la istagaalo geeska waxaan rabnaa Itoobiya inay guriyaheedii ku laabato inteedan yarta ah wax ooga suuragelayna ma jiro damaceeda badda iyo midka barrinka midna ani aragtidayda xiriir dhow ayaa la leedahay deegaanka Soomaalida dhawaan waxa soo ifbaxay odayaal Soomaaliyeed oo koofido wata oo taageeraya dawladda Itoobiya isla markaana ka soo horjeeda dadka Soomaaliyeed arintaas markii ashashadaha aad ka aragtay dareenkaada soo noqday wallahi horta waxa la yiri nin baa wuxuu yiri ayeedeen maxaad ku ogeysiyo in dhalaan dad cunimana way ku darsatay Itoobiya way taanaqaanay hadda odayaashaas ma matalaan deegaanka Soomaalida walow aan garanayno wax ku kalifay oo maanta ay u dhahaan Soomaali ma nihin iyo Soomaali waa odayaal masaakiin odayaashii rasmiga ah ma aha ugaasidii rasmiga ah ma aha kuwan koofiyad bacalayaal baa la dhahay waa kuwii qarnigii dagaal ku socday 20 iyo dhowr sano dagaal ku socday dhaqanku ka xumaaday daba socday dawladda u ahaa kabaqaadiyada marka ugaasidii rasmiga ah way beeniyeen odayaashii rasmiga ah way beeniyeen iyo suldaamadii iyo kuwii la midka marka odayaashaas bulshada ma matalaan laakiin history xun bay horseedeen anigana dadka aad ay saameynta ugu yeelatay aad ugu xumaaday baan laakiin wax yiin baan ogahay inay wax jiraan kuwaas waxa sidoo kale aan ka warqabaa inaad taageero weyn u ahayd Khartoum State dadkii oo la qayb ka ahayd hadda Khartoum State dhawaan dawladda Soomaaliya waxay ka codsatay in loo aqoonsado maamul gaar ah arintan sida u aragtaa horta Khartoum State baan kaaga waramay Khartoum State waa meesha midnimada Soomaaliyeed hormuudka u ah Soomaali hadaan maqasho center ba isku haya waa Khartoum State of Soomaaliya run ahaantiina markii hore si ay ahayd ba Soomaali mar horena waan ka hadlay federalism ma geyin maamul ma geyin laakiin inta Soomaali la isu keenayo ay midoobaysa ayaga Soomaali doorteen inay noqdaan federalism Khartoum State of Somalia oo ah dad kolkoodii horena umada Soomaaliyeed oo ahaa halgamayaal iyo hormuud Soomaali midnimadeeda kowka Soomaali kuwa isku haya kowka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya inay Khartoum State wax yar baa ka dhimay wax yarna ay oo ansixiso oo aqoonsato laba gobol iyo badba lagu noqonayaa maamul goboleed أنا waxaan ka jeclaan 5 gobol dhahan si maamulada loo yareeyo laakiin intaas ay ku ansixiyeen dadkii Soomaaliyeed Khartoum State of Somalia ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo aan Nairobi isku aragnay madaxweynaha Soomaaliya oo raba hadda markaan noqdkayga insha Allah hadii Ilaahay nabadgeeyana arki doono iyo madaxda Soomaaliya waxaan halkan cod dheer ku marinayaa Khartoum State waa idin ka mahad celinayaa qaybtii aad ansixiseen oo ah inaad mushaarkii iyo hay'adii caalamiga iyo wax walba loo ogolaaday iyo isteednimadeeda laakiin in si buuxda loo aqoonsaday aan halkan cod dheer ku gudbinaya deeqow inaan Khartoum State taageero u ahaa waxay ahayd aan ku diidanaa dulmiga ana umada Soomaaliyeed midnimadeeda jecelahay waxaan jecelahay Soomaali inay hal qoys noqoto raas kamoon min raas Casayr waxaan jecelahay Soomaali inay awood iyo xoog adduunka ay kula tartanto oo ay kula sinaato yeelato Khartoum State-na waa hooyadii aabihii umada Soomaaliyeed ee xiriirinayay Khartoum State dhibaatadii la gaarsiiyay aad baan ugu xumaa taas aan inaan codkayga ku garab istaaga iyo maxaa ku dhahaye luuqadaydii media-hayga sabab u ahayd marka leedahay hooyadii aabihii umada Soomaaliyeed xiriirinayay qodob noocee codsanaysa marka kan cuskanaya waxa weeyaan waad ogtahay Soomaaliya qaybta British Somaliland dhahay qayb ka tahay Khartoum iyo raacsan tahay
haddii ayagu raacaan maamulka hadda Soomaalida diidan ee dhahaya Soomaali ma rabno Khaatumo State waa iyaga Soomaali dhibaato u geysan karaan iyagu mar walba waxay midnimada Soomaaliyeed bay hormuud u yihiin oo leeyihiin anagu Soomaali baan nahay Soomaali kala goynteeda ma ogola qof walba damiir lana Soomaalida waa qoysar wax laga kala gooyo ma jiro Djibouti baaba iman lahaydba kuwana hadda Soomaali galbeed ba haday xoroobaan iman lahayd Soomaali marka reer Khaatumo iyaga isku haya haday dhahan laakiin Soomaaliya waan ka baxno maamulka kale aan raacno ku birnay waxa ka baxaya damici kale ee in banaanka Soomaaliya qayb kale ka go'da soo baxaysa marka Soomaaliya iyaga oo ah isku hayntooda waa reer Khaatumo ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed maxaa jeclaan lahayd oo fariin ah inaad u dirto deeqawaadiyad ba mahadsantahay waa su'aal muhiim ah ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa Soomaaliya 32 sano ay burbursanayd inayna ummadda Soomaaliyeed wali aynan waaqica wajihin inay aqoon-yahankoodii iyo madaxdooda waaqica jira ayna wajihin in dalkoodii la kala googeynayo in talaabada la soo qaadiyo in dhax ka dhowranayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa maanta idin hoos yaala eed ka tagi doontaan waa dhaxalkii caruurtiina waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed midnimadiina kow ilaashada waxaan dhihi lahaa jiritaankiina iyo xuduudihiina hala ilaaliyo waxaan dhihi lahaa nabadgelyadiina hala ilaaliyo waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed kala dhuumashada aad cadow shisheeye u kala dhuumanaysan inta joojisaan idinku isku tashadaan oran lahaa aad baan uga walbahaarsanahay 10 sano soo socda dadka Soomaaliyeed haday sidan ahaadaan oo ay ku sii jiraan nooca maanta loo dhixgaliyo loo kala jajabriyo dhalinyaradii wadanka uga qaxayso damaca aynu sheegaynay Itoobiya aynu ka hadlaynay ee dhulkoodii ku damaceysay badoodii waxa soo dhanba inay ummadda Soomaaliyeed ku tahay mid iyagu ay fududeeyeen oo wali aynan Soomaali la midaynin aad aragto iyadoo Itoobiya luuq fadhido inay madaxdii Soomaaliyeed dhinac leedahay Itoobiya hanaga baxdo qaar ay soo dhaweeyeen marka ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay maanta chance baad haysataan 10 sano soo socda laakiin hadda chance ka faa'iideysan weydaan ma dhici doonto inaad ciyaalkiina meel aad uga tagtaan aad heshaan aad bay u mahadsantahay daawadayaal taasi waxay ahayd halgamaa Ubax Maxamed Tarabi oo wareysi gaar ah siisay telefishinka Universal Studio oo ku leeyahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka wareysigan waxa qaday anigoo daqdarajo ah intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadiino nooli kulantii amaan Allah waad mahadsantahay